بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. مدن aad baan u mahadsan tahay. afayaan haddaan ku bilowno su-aal guud. siyaasiyiinta Soomaalida guud ahaan waxaa lagu xantaa inay ka warwareegaan jawaabaha xaqiiqada ku saleysan marka la wareysanayo, isla markaana jawaabahooda ay ku saleeyaan qancinta wariyaha iyo dhageystayaasha. adiga ka siyaasi Soomaaliyeed ahaan, su-aashan waa su-aal guud, ka siyaasi Soomaaliyeed ahaan tuhunkaas sideed u aragtaa? wax ma ka jiraan? waa dhici kartaa dadka inay isku mid ahaan oo insha Allah ay dad wixii ay qabaan ama siyaasadeed ama si kale u dhigo waa suuragal. marka intaas aan dhigi lahaa. marka insha Allah wadigi marka waxaad weydiin lahayd baad inaad weydiiso tahay. marka insha Allah wixii aanu ila tahay macaan oo arko inay rasmi tahay baa ku sheegaya insha Allah. horta bani aadamka waxaa la yidhi geeridiisa waxaa looga qariyay inuu iswelwelin. waa laga yaabaa dadka isku fikir ma aha, isku waxgaradna ma aha. dad waktigii waa kaa dhamaaday, kursigii ma kusoo laaban doonta ama waad weyn doontaa. waa runtii waa in laga welweli macquul waaye. waana dhici kartaa sababtoo ah wixii keligaa iskama yeed waa kursi dad ka dhexeeya. horta waxaan rabaa inaan kuu sheego annaga waxaan ahayn bilow, baarlamaan bilowa iyo dawlad bilowa oo lagu bilaabay meel 22 sano waxba ka jirin oo isku dilayay baan ahayn. waxaan dhaxalay ma jiro oo hadday tahay waayo aragnimo, hadday tahay dhaqaale, hadday tahay wax walba siira ka bilownay. marka waxaan isleenahay maadaama aan siira ka bilownay wixii wax weyn bayay jiri, laakiin waxaan isleeyahay waxa hadda maanta la taaban karo inaan qabanaan aaminsanahay. wax badan baa soo qabanay hadda insha Allah. wax badanna wuu noo dhiman yahay, inta noo dhiman baana badan. marka insha Allah inta aan qabanayna waxaan isleeyahay waa wax la taaban karo badan baa soo qabanay. laakiin waxaa kalifay in sidii la rabay ayna noqonin. waa dareemi kartaa. waxaana in baarlamaan bilowa oo baarlamaan ka horeynin oo caqabkii lagu shaqeyn lahaa la helaynin. insha Allah wixii loo baahnaa oo lagu shaqeyn lahaa la helaynin. waxyaabo badan baa kulli caqabadeena way jireen. marka sida ayadoo ay tahay waxaan leenahay hadda bilow fiican baan leenahay insha Allah taala. waa run oo baarlamaanka la mariyaan lagu darin. waa insha Allah waa lagu dari doonaa. waa wax guud baa hadda jira, siyaasad kala guud aa jirta. marka insha Allah laakiin taa waa sharci baarlamaanka la mariyay oo adduunka oo dhan ay u dhiin waaye. waa lagu dari doonaa insha Allah mar dhow sida aan ku ballansanahay hadii ilaahay. ma hadda muddo kuma qaban karo, laakiin inta hadda dhismaha dawladda federaalka ay socoto in uu kusoo dhammaan doono yaan aad ugu rajweynaa insha Allah taala. maya xiriiroo ka dhexeeya ma jiro. xukuumadda waxaa laga sugayaa madaxweynaha. runtii hadda way dhamaystiran tahay. 17 wasaaradood baa dhisay oo wasiiradooda iyo ku-xigeenadooda la dhaariyey. qaar markii la dhaarinay safari jiray, laakiin hadda ay u ballansan yihiin ay hor imaadaan baarlamaanka la dhaariyay wuu jira oo wasiir dawlayaal iyo ama wasiir ama laba wasiir ku-xigeen wax saas ah. marka inta kale hadda sharciga waa la mariyey, waa la dhaariyey. marka intaasna way ballansan yihiin, safare iyo shaqo ku kala maqnaayeen. marka insha Allah maalmo dhow iyagana in sharci loo keeno la dhaariyaan waan gartay. afayane dalka Soomaaliya waxaa ka jirta dawlad federaal. Soomaaliya waa dal federaal, murana kama taagna. dastuurka dawladda dhexe iyo kan Jubbaland waxaa ku qoran in Soomaaliya ay tahay federaal. madaxweynaha Jubbaland dhowr jeer wuxuu sheegay inuusan ku qanacsanayn nidaamka federaalka sida uu saxaafadda ka sheegay. idinka ka baarlamaan ahaan, sharci dejin ahaan, idinkoo matalaya shacabka Jubbaland, sideed u aragtaan arrinkan? ku waafaqsantihiin oo macnaha sideed u aragtaan federalismka?
federalismku waa muqadas dastuurka soomaalida ka dhexeeya ay ku qoran tahay asagaana madaxweyne ku ah marka insha allahu taa iyada waxaan leenahay federalismka waa waajib waana soomaalida ku dhisan istiidi badan baa ku dhisan oo asaga madaxweynaha uu ka mid yahay annaga baarlamaankeena uu ka mid yahay haddii uusan jirin federaal annagana baarlamaan ma ahaateen isna madaxweyne ma ahaateen oo wadanka hal madaxweyne u yeelan lahaa marka insha allahu midaas waxaan isleeyahay wuu iska kaftan badan yahay madaxweynaha kaftankiisay ka mid tahaan dhigi karaan ma aha wax ka dhamaa saasaan ana kuley leeyahay sababtoo ah sharciga baa wax walba ugu weyn sharciga ay ummadda soomaaliyeed dhigatay waa dastuurka waa federalism marka taas in loo hogaansamana waajib waa isleeyahay insha allahu tacaala waxaan isleeyahay waa soomaalida un baa la mid nahay dawladda koonfurta soomaaliya ciidamada hadda jooga haddii ay baydhabo ka baxaan ama ay muqdisho ka baxaan wixii ay noqdaan un baa noqonaynaa kama horeyn doono insha allah waxaan isleeyahay inaanan dumi doonin oo aan waxayna difaacan doonaan aaminsanaha insha allahu tacala annagoo ilaahayna kaashinana dad islaam oo diinana waana ciidanna waan haysanaa ciidamada jinaayadtu annaga nala joogto eeraboorada iyo meelahaasi jooga laakiin waa ka duwanahay aan isleeyahay hataa maamulada kale hadda sida dawladda federaalka oo kale madaxdeeda waxaa waardiyeeya ciidamaha misoon laakiin annagana ma waardiyeeyaan annaga insha allahu ilaahayna aaminsanoo isku filan guud ahaan beesha caalamka dowrkeeda ku aadan arrimaha soomaaliya ka baarlamaan ahaan idinka ka baarlamaanka jubbaland ahaan sideed u aragtaan dowrka beesha caalamka ee ku aadan arrimaha soomaaliya waxaan u aragnaa arrimaha soomaaliya beesha caalamka inay sidii loo rabay ayna wax ugu wadin oo hoosheeda ay gaabis tahay oo ay tahay inay iska bedelaan oo ay soomaalida wax la qabtaan sida beesha caalamka mama dhaqaalo usiiso amisoonta ciidamadooda iyo ciidamada kale oo soomaaliya ka howlgelayo waxaan isleenahay nimankas kasoo horjeeda dawladnimada way ka adag yihiin oo way qaban karaan marka waxaan isleenahay inay arrintooda gaabis tahay ay tahay gaabista inay ka baxaan ay dadka iyo dalka ay dadka cadowga ka xureeyaan baan insha allah usoo jeedina ka waran rajadiina ku aadan wada shaqeynta baarlamaanka dawladda dhexe haddii ilaah yiraaho sanadka dambe marka dawladda dhalan doonto insha allahu waxaan rajaynaynaa in uu wanaagsanaan doono oo kii hore hadda waktigiisa dhamaaday uu ka duwanaan doono baarlamaanka hadda soo soco sababtoo ah gobolada soomaaliya oo dhan baa insha allah laga soo dooran doonaa annagana haddaan nahay jubbaland door baan ku yeelan doonaa iyo dad jubbaland kasoo jeeda oo jubbaland matala baarlamaanka geli doona insha allahu waa in sidii hore uu aad uga fiicnaan doono inkastoo hadda uu soo hagaagay baarlamaanka federaalka iyo xiriirkiisa iyo xiriirkeenada uu hadda xumaan marka inuu kasii fiicnaan doonaan rajeynaa ilaahay insha allah waan gartay mudane su-aasha ugu dambeysa baarlamaanka dawladda federaalka muddadii uu jiray waxaa lagu xasuustaa mooshinno iyo caro istaba joog ah idinka haddaan kula kaftamo weli ma xanaaqdeen oo ma ku fikirteen inaad mooshin ka keentaan madaxweynaha ama suldaan luga dheere ama madaxda sare ee dawladda maya ma kuma fikirin mana ku tala gashinin hadee waa haddii ay noqoto de waa wax kale laakiin hadda hal mooshin oo ku aadan madaxda maamulka weli xildhibaankeena mooshinkaan u jiro afayeen su-aashaas waa kaftan iga raalli ahow maxaad u dardaarmaysaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa guud ahaan waxaan u dardaarmaya in ilaahda ka cabsadaan maadaama ay dadka soomaaliyeed 100% muslim yihiin ilaahadana caabudaan ayagana ay saafiyaan insha allahu tacaala danaha guud ee soomaaliya ay usoo jeestaan goos iyo gobol midna wax ma dhisi kare soomaali inay garbaha isqabsato soomaalinimadii iyo islaamnimadii iyo sidii soomaaliya lagu yaqaanay wanaagii isku duubnidii ay soo celiyeen intaasaan isla dardaarmaya soomaalida afhayeenka baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland mudane sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan waad mahadsantahay mudane waqtigaaga qaaliga